maaragtay guddoonsiintii xalay saaxiibkeen aan nucayn la guddoonsiiyey saxafiga ugu wanaagsan ee sanadkii ka soo dhafay 2019 waxaan leenahay aan nucayn waxaan oran karaa waa xubin dhalinyaro oo aad u firfircoon habdoor muhiim ah ka ah dhalinyarada dhexdeeda aniga xalay markii la yiri saxafiga waa u gartay inuu aan nucayn yahay asoo la sheegin baan ku dhawaaqan masaareer waa nin mudan in lagu daydo wadada marana ama waxaan aad u faraxsanahay inaan xalay xafladda ahaan mustaqbalay awdna aan ka qayb galo waxaan hambalyo qaas u dirayaa walaalkay cali nucayn oo noqday wariyaha sanadka 2019 waa sidii hore loo sheegay qofku markuu helo hawaad wuxuu yeeshaa cadow fara badan jaalanjiyo fara badanna way imaadaan waxaan ku leeyahay walaalkay horumarkaaga waa mida kugu garab taaganahay halkaas ka sii wad walaalka cad waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa ugu qalma abaalmarintaas salaam ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa saaxiibkay aan nucayn oo ku guuleystay bilad qaali ah waxaan leeyahay saaxiib hambalyo waad u qalantay inaad ku guuleystay biladaas inta aan ka aqaana aan nucayn waxaan leeyahay waa mudan sanadka in la siiyo waana u qalmaa waxaan nagu mahad celinaynaa garashadii u garteen tiimka Kacawaan inuu yahay wariyaha sanadka waxaan leenahay ku mahadsantihiin aragtideena hadda ku darsanana waxaan leenahay waa haleesheen meeshii la rabaa dhigteen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa tiimka Kacawaan soo koobi karin wax lama filaana oo aan malaysanin qofku ma soo koobi karin wax lama filaana oo qofku markuu aad iyo aad ugu faraxsanahay in runtii madasha Kacawaan ay runtii tixgelin muhiim ah ay siisay wax aan filayn boqolkiiba boqol rajaah ay muujisay hamigeyga boqolkiiba boqol kor u qaaday markaan intaa ka soo laabto dhalinyarada halkan ku soo caawa caasimaaddii sameeyay ee ugu talagalay inay dhiirigeliyaan runtii waa mahad celinayaa ugu horeeya maayarka hoggaankiisa ahna gudoomiyaha maayarka Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo ah dadka saaxiibada dhow aan la runtii in badan aan isla shaqeyno kamid ah saaxiibada aadka aan waxa isku dhigay gudoomiyaha dhalinyarada sidoo kale beesh saaxiibo badan gabdho qurux badan sidoo kale dhalinyaro kala saaxiibkay qaaska waliba Saadaq Raagana waxa waaye imaamka lama soo koobo waxa waaye runtii waxa runtii marka laga hadla arrimaha gaalkacyo dhalinyarada in la dhiirigeliyo ama qorshooyinka ay hiigsanayaan in lagu dhiirigeliyo mudan yihiin tani waa ka mid fariinta dhiirigelinta waxaa sidoo kale dhiirigelin mudan dadkii keenay fikirka Gaalkacyo Awards in dadkooda u qalmo ama dadkooda say niyadda ugu dhisi lahaayeen laftirkooda ku hamiyey kana dhabeeyey dadkaas waxay mudan yihiin dhiirigelin in ayaga laftirkooda weyneyno oo aan sameyno kulamo ayaga laftirkooda lagu dhiirigelinayo annaga taasi waajib nagu tahay